runtii aan muddo badan ka fikrayay ilaa yaraanteydii ilaa haddaba ilaa markasta aan aad uga fikri jiray waan dareensanahay runtii in kuwa badan oo idinka mido runtii aan ku yara aragti duwanahay laakiin muhiimadeedu waxay tahay horta anigu waxa aan rabo inaan soo gudbiyo taasaa aniga aad igu muhiima sidaan la soconaba adduunyadan waa lagu soo kala horeeya waana lagu kala dambeeya aniguse waxaan hadda maanta halkan usoo fadhiistan codsanayaa waxay tahay in ilaahay subxaana watacaalaha maalintuu i oofsado oo kolley dadna waa iga dambeyn doonaa dadna waa iga horeyn doonaa wax iska caadiya laakiin anigu waxa weeyaan waxaan codsanayaa maalintii ilaahay i oofsado ee ajasheedu dhammaato ee aan dhinto inaan wax qabri alle iyo qodin inaan lay aasin arrintan waxaan ka fikrayay runtii muddo aad iyo aad u fara badan dhinaca diintan ayaan la iila cararin markiiba sababtoo ah waxa weeyaan diinta islaamka oo aniga aan ku dhashay ee aniga aan jeclahay ee aan ku dhiman doono insha allah si wanaagsan uma aqaano ilaahay subxaana watacaala ha ii kasto inaan si wanaagsan u barto insha allah mana garan karo runtii culayska ama cadadka ay ka qosayn karta arrintan runtii anigu ma garan karo hadda mid ii cabiran ma aha dhinaca diinta weli kuma eegin laakiin dhakhaatiir badan baan la xiriiray arrintan macnaha waxaa ka suurtageli karaa waxaa ka macquulka ah siday u dhici karto waxa weeyaan runtii inkastoo dhakhtarkii ugu dambeeyey runtii uu iniyad jebiyey uu igu yiri adiga waxaad ka baqaysaa qabriga iyo waxaad ka baqaysaa dhuwa xabaalo laakiin isagu siduu ii sheegay in isagu maxaa la yidhahdaay uu saxiixay markuu isagu dhinto in la gubi doono subxaan allah marka aniga ahaanteeda fikraddeeda waxay tahay iyadoon wax diin ah meesheeda loogu tegin oo la ixtiraamayo oo maxaa la yidhahdaay aan diinta meesheeda loogu tegin haddana in fikrad ahaan iyo maxaa kula system ahaan bal waxa arrintan ka suurtageli karaa in la eego adduunka maxaa la yidhahdaay dhul la-aan kama jirto adduunka dhul badan baa iska bannaan dhul kasta wuxuu waddan kasta wuxuu leeyahay dhul aad u tiro badan oo lama degaana oo maydka la dhigi karo meesha laga caasi lahaa in maydka meeshaas la dhigo dhul kasta waddan kasta dhulka ka bannaan in maydka la dhigo haddi kadib xitaa haddaa fiirisay systemka ay wax u socdaan waxa weeyaan dadka haddaad eegtid dadka sii gaboobaya iyo dadka soo dhalanaya runtii waxaad moodaa dadka sii gaboobaya inay aad u tiro badan yihiin oo runtii ay aad u yaraatay dhalmadii iyo tarankii inuu hadda kadib xitaa aad isu yaraan doono khaasatan hadda waddamadan reer galbeedkaan joogno inuu aad wixii isu yaraan doonaan halkaasna ay fursad tahay oo runtii ay kasoo bixi karto dhul aad u tiro badan oo dadka dhinta la dhigo ama lagu kiib karayo meesha laga caasi lahaa qaar ba oran doonato culayska soo food saaray ay ka sheekeynaysaa waa maxay runtii anigu alxamdulilah rabbilcaalamiin waan caafimaad qabaa laakiin soomaalida waxay tiraahdaa wixii aan la huraynin horaa loo qabsadaa marka aniga waxay iga tahay wixii in horey loo qabsado unba iga tahay waana waxaan la huraynin waana wax aniga igu taagan inaan wixii aniga fikirkayga aan ka dhiibto maadaaba waxaan anigu rabo weeyaan anigu waxaan kasoo horjeedaa oon halkaan usoo fadhiyaa ma rabo qof kasta oo iga geeri dambeeya arrintaan qusaysaa anigu in lay aaso diyaar uma ahi qof kasta markuu intuu nool yahay ayuu magaranaysaa wax ka hadlaa wax codsadaa wax dhihi karaa inkastoonan rajo aad u fiican oonan ka qabin oo xitaa aniga hooyadii i dhashay oo adduunka ilaahay iigu jecel yaraan baanu ahay hooyaday labadada andhood bayga jeceshay cimrigeeda ilaahay ha rajiyo haddi kahor maraan weydiiyaan ku yidhi anigu hooyo ma doonayo haddaan dhintay ilay aaso aan ka dhaadhicin kara waayo waxay ugu tiri maa waxaa ka baxo
iga horreysidna waan ku asturayo awalna maxaa la yidhahdaa aan qofba mar farta ka xiri jiray walaalo dad iga nolol dambeysay u sheeg dadka qabriga nebcahay yaa lay gelin laakiin hadda maanta anaaba halkaan la soo fariistay ilaahayna talaan saaranaya insha allah inaan lay aasin oo aan dhulkaas anigu hadda aan ku dul qorxoonahayo aan ku dhashay aan ku qurux badanahan joogo hoostiisa inaan lay gelin baan ilaahay ka barya dadka waxaan aad iyo aad ula yaabaa dadka xalaala soo kala yaacaan mar allaala marka qofku dhintaa waxaad arkaysaa waxaase usoo kala ordayo meelkiimadan la aqoona ma jarafadiya balaayi horta waxay wax ku xabaalaan xagge u yaallaan waxaan dhihi lahaa naxariis darrada iska daaya qofku markuu dhinta xal kale hala keeno waxa weeyaan anuga hal gabar hadday imaydho is okay حتى dadka mayra intay soo kala cararaan bay maxay yiraahdaa dadka isugu tagaanoo jiidaan dadka meydka ah anigu waxa soo dhan mar rabo barafuunada iyo cadarada aadka u udgoonna ma jecliyaan laygu shubin surkana yaan layga xirin qabrina yaan lay gelinin qofka qabri iyo qoda qabri igeliya maalinta yawmal qiyaamah haystaa macafiin ajar iyo xasanaadna ka helimaysid xabaashayda qofkii ii soo ducaynaya ama si wanaagsan waxa weeyaan ii wanaajinaya deeskuud laakiin in aniga la xabaalo oo dad ciidigu wajiga iga shushubaan ma rabo subxaanallah ilaahay baan ka magan gaa ilaahayna waxaan dacwo kaga ahay dadkiisa iyo qabriyada anigu khaasatan waxaa ninka qofku wuxuu yidhi qof baa yidhi baa layidhi qof aniga yiri dad iska reeb anigu waxa weeyaan arrinteeda aan ka hadlayaa waa taas ma rabo in la aaso dhul qurux badan baan ku dhashay waxa weeyaan xitaa dhulka aadan cabirto oo dhulkayga aan dib ugu noqdo meesha aniga aan ku dhashaan jeclaan lahaa in geed lay saaro anigu waxaan ku dhashay meel booq la yidhaahdo dhinaca Itoobiya hooyo ku dhalatay aabahay buuhoodu ku dhashay dhulkaas aan sheegaya dhul aad u kala fog ma aha dhul maxaa la yidhaahdaa hawd aweeye geedo badan leh roob baa ku da'a maalin kasta maasha allah waa cadar kulayl male dhulkaas geed halay saaro qofka iga dambeeya ayay arrintan qusaysaa aniga ilaa xabaalo ma rabo ilaahay baan ka magan galay ajar iyo xasanaad ka heli maysid dadka xabaalo waxaan oran lahaa naxariistu ha idigu soo duxdo weligay allah xitaa dhurwacyo yar oo korkayga saaran xitaa gacanteeda uma qooreen ku dilo iska mid ah qof la xabaale wallahi wixii dusheeda saaran ayaan dargo inaan dhaamahay ina xitaa gacan ku taabta laga yaab naxariistu ha idigu soo degto dadka yaa la xabaale xalka la hala keeno maxaan ku dhahay arrimaha diintii waxa yaa la ila cararin yan markiiba la ila boodin arrinteedu saas weeye way caddahay waxa aan ka hadlayaa waxa aan rabin baan sheegayaa أجري حسنات كيلي ميسان قف كبانت الدوغة أو بحال هذا ويلا سوكلا دوجي عيلي وشبع لا ما كمان قال سركنا يا مرة لا يحيل وانا معي أجري كيلي ميسان هذا اللي شيء ما ننتظر بنتو أجري حسنات هون كيلي ميسان أقرأ هذا استعد لأستان قبل كاس لوكاس يقولين جيت كاس هلا يسار لوكا جيت هلا يقسمرو حافظها هلا يجيو ماشي أقول الشيء الجعيل الأزل ما عرفت أقول جدا حاجة عليك وإذا كنت صنيع قف كستقلا إذا نرو ذنبي أنا عندي قصيصة فيديو قصية ما تلك الله فريا قف كستقلا إذا نرو ذنبي قف كستقلا إذا نرو ذنبي أو أنا فيديو قصتا ولا كان تاون قصيصة لكن كيف فيديو قصتا أو أنا هالكاس أنا صوف فردي أركو maalintii aan dhinto waxa weeyaan asxaabtana waxaan leeyahay hadda bay wiilaadaa deeq adduunka kaale ku soo wareeg xaggan iyo xaggan maalintaasna wareeg u baahanahay maalintaas diyaaradaha lay saaro haligii meeshaas geed ha lay saaro laga soo wado geedka korkiisa ha la ii firaasha la ii geeyo raka ha lay sameeyo wax geedaa lagu sameeyo waa codsi ku socda qof kasta oo iga nolol dambeeya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qabriga waa necbahayaa lay gelina